geedii yaraa ayay iska dishay iyadoo lagu jiro bil Ramadaan oo barakaysan. Hooyadan oo oynaysa oo ka toobad keentay ficilkaasi xumaa ay ku dhaqaaqday. balse ilaa hadda hooyadani ay la nooshahay tiiraanyada iyo warwarkaasi ficilkaasi ay samaysay. hooyadan ayaa hadda TikTok caanka ah. hooyadan ayaa ka sheekaysay sida ay wax u dhaceen bil ha ilmaamin inaad like saaratid gambaleelkana furatid like-tu waxay noo tahay dadar iyo dhiirigelin adigana wax dhiba kuma hayso YouTube-keenana subscribe saaro gambaleelkana furo kuma hasanid. waa hooyo Soomaaliyeed oo ka tiiraanyaysan ilmaheedii oo ay habaar ku dishay bil Ramadaana. waxay tiri waxaan lahaa uur 8 bilooda. waxaan dhibsaday uurkan. waan ku xanuunsaday. waan ku dhibaatooday. kadib ayaan goor casara ayaan kor u taagay gacmahayga anigoo Ilaahay baryaya. anigoo Ilaahay ka baryay Ilaahayow ilmahan dhinacuun ii dhaafi si degdega. balse daqiiqada kadib bay tiri ilmahaygii caloosha ku jiray waxa uu joojiyey guud ahaanba neeftii iyo socodkiiba. haddaba qisada hooyadan iyo waxa ku kalifay waxaan idin haynaa fiidiyow ay soo duubtay oo ay kaga sheekaynayso bilow ilaa dhammaad. haddaba idin kala baxayaa ee daawasho wacan muuqaalkana lay gare. waan la wadaagayaa sida wax u dhaceen laakiin waxaan rabaa marka hore inay raahdo ma jirto hooyo ilmaheeda kas u habaaraysa ama dhib la jecel laakiin xilli samadu furan tahay ayaa laga yaabaa inay hadal kaa dhaco kadibna maaragtay qadartii ay sidaa ku haleesho ilmaha. aniga runtii sanado ka hor galab maqriba oo Ramadaana ayaan gacmahayga intaan kor u taagay ayaan habaaray ilmahay. waxaan ku habaaray horta waan xanuunsanayay maaragtay uur ayaan lahaa 8 bilooda. bishii 9aad markaas ayaan madaxa geliyey kadibna intii maaragtay 6 bilood hore ka dambeysay waan xanuunsanayay. xanuunkii baa iga tira batay. qalbiyana waa u xanuunsanayay, jir ahaanna waa u xanuunsanayay. kadibna waxaa dhacday inaan xanuunkii intaan xamili waayay aan gacmahayga intaan kor u taago ayaan ku dhawaaqay Ilaahow Rabbiyow dhan ii dhaafi. waa ku dhibtooday. kadibna markii aan cabaar kadib joogay ayaan dareemay inaan maaragtay qalad ku hadlay oo aan ka istaghfirullaystay. duca ayaan bilaabay marka inaan u duceeyo oo maaragtay aan sadaqo u bixiyo. kadibna markasta waxbaa igu dhahayay way dhimanaysaa ayaan markasta wax igu dhahayay. yacni qalbadeydana way ku wareegaysay waxna waa moodaa inay ii sheegayaan oo waxay ila tahay inay habaarkaygii la aqbalay. sidii ayay noqotay. habaarkayga waa la aqbalay. inantaydiina sidii ayaan ku waayay. dad badanoo waxaa jira arrinteeda si fiican u fahmay oo fariimo wanaagsan ii soo qoray. aad baa ugu mahad celinaya dadka ii soo duceeyey oo arrinteeda si fiican u fahmay. runtii waxaa jira dad aan moodo inay qalbigayga maaragtay ay ku jireen ama xaaladii markaa aan dareemayay ay maaragtay ogaayeen oo qalbigayga ku dhex jireen. aad baa walaalayaal u mahadsan tihiin. dadka kaloo maaragtay ii malaynaya inaa ahay hooyo xun, hooyaan ubadkeeda rabin, hooyaan ilmaheeda jeclayn ma ihi. waxaan ahay hooyo ilmaheeda jecel oo indhaheeda ka jecel laakiin qadar baa igu dhacday. qadartuna qof kastay ku dhici kartaa. aday kugu dhici kartaa, anigay igu dhici kartaa. ismaan lahaysaana wax noqonayaa.
ismaan lahayn ubadkaagii baa carabkaaga ceersanaya ismaan lahayn. xaaladii markaan ku sugnaana waxay ahayd xaalad runtii maaragtay khatarteeda leh. iska daa ilmahayga nafteyda ayaan khatar ku ahaa. balakoonka haddaan wax yar istaago waxbaa igu oranayay iska tuur. qofkii yacni waxaa dareemi kara maaragtay fahmi kara cudurrada nafsiga iyo qofku maaragtay markuu qalbiyan u xanuunsanayo. xanuunka qalbigaana wuxuu ka xanuun badan yahay xanuunka maaragtay jasadka runtii ka xanuun badan yahay. xaaladaasi waxay ku dhacday anigoo isku buuqsan oo markaas hadlaya. hadalkii aan waday ayaan soo dhexgeliyey halkaas kelmad, kadibna gacmaha kor u taagay anoo dee buuqayo wixii wada. halkaasaan uga gudbay kumana noqon. wax yar kadibna waan ka qoomameeyey, duco badan baan raaciyey, sadaqan ka dabageeyey, laakiin qadartii baa ka hormarta. horta arrinteeda waxay ahayd muddo ka hor. qaladkaygana anaa ictiraafay, ilaahay baana u qirtay oo maaragtay uga toobadkeena. ilaahayna maaragtay wuu iga samirsiiyey, bedelkeediioo degdegana wuu isiiyey alxamdulilaah. xilligeedii kaleba waan dhala. ilaahay mahaddiis ubad horena ilaahay waa isiiyey. qadarka ilaahay kama xumi, waana samirsanaa. laakiin idinkaan rabaa inay uga cibro qaadataan. anaa isku cibro qaatay oo ogaaday qaladkayga, laakiin idinku waa inaad yacni uga cibro qaadataan. dad badan baa ii soo qoray fariimo ila soo hadlay. arrintaas anay igu dhacday, waalidkayga ku dhacday, hooyadaybaa walaalkay habaartay, aabbahaybaa walaalkay habaaray ama ilmihiisi habaaray. dumar badanna waan ogahay oo aniga ii sheegay oo yiri ilmahaygaa iska habaaray. qaarkood waxay dhaheen anoo yacni taa cunug u dhibtooday baan iska habaaray inaan wax dambe dhalo, kadibna wax dambe ma dhalin ama markaan dhalo way iga dhintaan. marka inaan ka digtoonaano khatarta ay leedahay ayaa arrintaa idinku sheegay. hablaana iga codsaday oo maaragtay markaa shiiqa hadalkiisa soo qaatay, aniga way i saamaysay sababtoo waa qisadaydii. ayaa maaragtay ay dhaheen nala wadaag siday wax kuugu dhaceen. sidaasaa keentay inaan maaragtay aniguna arrinta runta ka sheego. bismillaah, su-aalo badan baa igu soo noqnoqday oo maaragtay la weydiinaya dadku aan si fiican u fahmin. gabadha gabar weyn miyay ahayd? meeqa sano jir bay ahayd? ilmo kale ma dhashay? iyo maaragtay su-aalo badan bay dadku ayna si fiican u fahmin oo aan videoga hore ku sheegay. marka gabar weyn ma ahayn, ilmihii markaa caloosha ku siday bay ahayd. ilmo kalena waan dhalay alxamdulilah, ka hor iyo kadibba. markii xilligii dhalashadeeda la gaaray waan dhakhtarkii u tagnay. alxamdulilaahi nolol bay ku dhalatay maaragtay, laakiin way cabursanayd oo may si fiican may neefsan karin. taqaadiirta waxay isku dayaan inay caawiyaan, laakiin way caawin kari waayeen. muddo 5 saacadood ayay noolayd. 5 saac kadibna waxay dhaheen gabadhaadii way dhimata. bishaaro sanado badan mala nooshaa xanuunka macaanka ama sonkorta. marna kor ma u kacaysaa sonkortaadu, marna hoos ma u dhacaysaa adigoo qaadanaya dawooyinka macaanka ee dhakhtarka uu kuu soo qoray, adigoo sooman macaanku kicitaankoodu faraba-an ma kugu haya. haddaba shirkadda afraad ugu weyn waddankaasi Maraykanka ayaa soo saartay dawo joojinaysa inay sonkortaadu ay kor u kacdo.
dawadan ayaa dawo herbala oo laga sameeyay geedka dacarta adigoo isticmaalaya dawooyinka macaanka ee dhakhtarku soo qoray ayaad isticmaalaysaa waxay guud ahaanba meesha ka saaraysaa in macaantaadu ay kacdo ama hoos u dhacdo haddaba sidee kaaga caawinaysaa kow waxaad qaadanaysaa 3 dawo oo herbala oo shirkadan ay soo saarto dawada koowaad ayaa la yiraahdaa Aloe Fergal tan labaadna waxaa la yiraahdaa Gardenia Plus iyo tan saddexaad oo ah Arctic Sea Aloe Fergal waa dawo herbala oo laga sameeyay geedka dacarta saafiga wuxuuna isticmaalayaa 2 saac ka hor intuusan isticmaalin dawadii dhakhtarka u soo qoray wuxuuna isticmaalayaa 6 qaado ama 6 malqacadood oo cuntada ka horeysa dawada labaad waa Gardenia Plus waa kiniin ka caawinaya qofka macaanka qaba ama sonkorta badan ee jirkiisa ku dhex jirta mushaaxaysa ayay ka dhigaysaa mid la isticmaalayo kadibna hanaanka ayaa caadi noqonaya banaanka ay uga saaraysaa guud ahaanba sonkorta hoosna waxay u dhigaysaa in sonkortaagu ay kor u kacdo tan saddexaad waa dawo herbala oo iyana u wanaagsan indhaha maskaxda sidoo kale beer subaga dhammaan dawooyinkan ayaa lagu keenayaa meel kasta oo aad caalamka joogto ama aad ku nooshahay haddii aad ku nooshahay North America waxaa lagu keenayaa hab free waa haddii aad joogto waddankaasi Mareykanka iyo guud ahaanba North America sida Canada iyo Mareykan deliveryga ama shippingka lagu soo diray dawadan waa free waa haddii aad joogto wadamada Mareykan iyo Canada haddii aad joogto dalkii hooyo waxaad ka helaysaa dawadan xarumaha shirkadu ku leedahay magaalooyinka Hargeysa Muqdisho Garowe Laascaanood Kismaayo haddaba si aad u dalbato dawadan aadna muhiim u tahay fadlan wac nambarkan shaashada ku qoran qaybtani waa qaybtii lafa xanuunka ma ka cabanaysaa lafa xanuun ma ka cabanaysaa jilba xanuun ma ka cabanaysaa murqa xanuun ma ka cabanaysaa curuqa xanuun ma ku dilooday rheumatismo ma tahay qof la jiifa xanuunkan lafa xanuunka ah ma tahay qof xanuun baabiye markasta ku socda ma tahay qof shaqaysan kari waaye lafa xanuun dartiis haddaba maanta waxaan kuugu bishaareynayaa kambanigeena weyn ee Forever Living Product inuu kuu soo saaray alaabo aad u tayo sareeya dabiicina ah wax dhibaato aan ku keensaneynin lagana sameeyo qudaar iyo dacar lagaaga soo diyaariyay ahna kuwa xalaal ah oo shahaadi xalaasha haysta naturalna ah waxaadna ka heli doontaa caalamka dhan meel walba aad ku nooshahay alaabtani waad ka heli doontaa iyo alaabo kale aad u sareeyo caawinaya caafimaadka midka ugu horeeya waa Forever Calcium waa calciumki iyo vitamin D oo isku jira waxaad isticmaali doontaa subaxda markaad quraacto 2 xabo habeenkina markaad cashayso 2 xabo midka xiga waa Forever Active waxa lagaga sameeyay huruud iyo qudaar iyo dacar wuxuu ka caawini doonaa laalaabatooyinka dareeraha ka dhamay ayuu soo celin doonaa dhiigana wuu nadiifiyaa subaxda waxaad isticmaalaysaa 1 xabo markaad quraacto habeenkina 1 xabo ayaad cunaysaa waxa kale oo ku xiga Forever Freedom waxaad isticmaali doontaa subaxda hore adoo afkaaga qaba 6 furka ku xiran 6diisa isticmaal habeenkana 6diisa isticmaal cashada ka bacdi waxa kale oo jira massage-ka heat lotionka waa massage fix ku jirto waxaad u baahan tahay marka aad seexanayso inaad isticmaasho meel walba oo laga hayo marso adigoo waliba bustahaaga ku jira ama meel dugsan jooga ha marsanin wajiga hana la bixin markaad saa u marsato banaanka ha la bixin sababtoo waxa weeye fixa ku jirto midka kale waxa weeye Forever MSM gel waa massage aad u tayo sareeya ma sha Allah waxaad isticmaashaa maalintii isticmaal habeenka xataa waa isticmaali kartaa kan intaad marsataa la bixi kartaa aad buu ku caawini doonaa alaabtan oo si dhab ah u isticmaasho waxaad ka caafimaadi doontaa Ilaahay idankiisa inta aan kuu soo sheegay